madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu xilka ka qaaday qaar kamid ah wasiirada maamulka Soomaaliland agaasimayaal guud iyo wakiilada qaar kamid ah wadamada ee maamulka Soomaaliland xiriirka dawladda leh waxa xilka wasiirnimo la qaaday Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Diiri guri barwaaqo wasiirkii wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka Ciise Axmed Yuusuf Cabdalla wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Muuse Abeys wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka waxa xil qaadis agaasimo guud lagu sameeyay Jamaal Cabdilaahi Maxamuud agaasimihii hore wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Xuseen Axmed Diiri agaasimihii guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Cabdikariin Xuseen Saciid agaasimihii guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxa xilkiisa kale la qaaday qaar kamid ah wakiilada wadamada diriska ee maamulka Soomaaliland u magacaawday Xasan Hiraab Yaasiin wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka Imaaraadka Carabta iyo Ayaan Salaad Diiri wakiil ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland ee dalka Kenya sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sameeyay magacaabis Cabdilqani Maxamuud Caataye waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Muuse Diiri Wacays waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda Liibaan Yuusuf Cismaan waxa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cabdiraxmaan Yuusuf Jaamac Roble waxa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dhaqanka Cabdilqaadir Cuthmaan Jaamac Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamaal Cabdi Muuse Diiri agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Cabdilaahi Saciid agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Mukhtaar Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka Faarax Aadan Haybe gudoomiyaha hay'adda dhaqaalaha dawladda Muniir Xaaji Cabdilaahi wakiilka Soomaaliland dalka Imaaraadka Carabta Darmaarke Axmed Maxamuud Geelle wakiil ku-xigeenka Soomaaliland dalka Kenya Maxamed Cabdilaahi Ibrahim gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer